بسم الله الرحمن الرحيم waxaan intii igu horeysay ee mas'uuliyiinta kala duwanaa u tacsiyeysay dhammaan intii ay wax ku soo gaareen shaqaaqadii ka dhacday magaalada ganacsiga ee Boosaaso oo isugu jiray mas'uuliyiinta dawladda iyo waxgaradka kala duwan ee Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba ee uga tacsiyeysay intay wax gaareen waxaan aniguna maanta caawa rabaa inaan ku biiriyo in Ilaahay u naxariisto intii halka ku dhimatay u boogadhayo intii ku dhaawacantay uga tacsiyeeyo intii waxyeelada kala duwan ay ku soo gaareen iyo inta barakacday ee bulshadii magaalada Boosaaso waxaan la qaybsanayaa xanuunka muddadii hadda shaqaaqadu socotay aan la qabay oo habeen iyo maalin ula soo jeeday sidii arrinta loo xakameyn lahaa waxaan u rajaynayaa magaalada Boosaaso oo ah magaaladii la magac baxday Boosaasodii nabadda Boosaaso deeqa inay nabadeedii ahaato waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer Puntland gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada Boosaaso inay ka shaqeeyaan nabadda inay ka shaqeeyaan xasiloonida inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga ahayd sida horay ay dawladdu marar badan u cilaamisay dawladdu dadkeeda dagaal kuma wado diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rido ciidanka dawladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dawladda horena u amarnay in ciidan dawladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin ku sugnaadaan goobahooda qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ee hayn jireen ee booliisku hayn jiray waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada Boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii waxaan dawladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqeynaya ee heerarka kala duwan ah heer gobolka bari degmooyinka Boosaaso iyo Carmo iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen mas'uuliyiinta ka shaqeynaysa iyo mas'uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hogaaminaysay waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini'aadanimo ay wadaan ay sii kordhiyaan iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goordhow ku soo noqoto deegaanadoodii guryahoodii oo nabad ah waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dawladda iskuullada jaamacadaha xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan birito oo ugu horeyso dekedda magaalada Boosaaso waxaan halka runtii ka cadaynayaa propagandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo in nabadda laga shaqeeyo in nabadda loo hiiliyo intaa markaan ka tago waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo dhammaan waxgaradkii kala duwanaa ee isugu jiray isimada culummada cuqaasha mas'uuliyiinta dawladda ee ka qayb qaadanayay sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa qalalaasihii dhacayna loo soo afjari lahaa si nabada ah iyagana uga mahadcelinaya dadaalkii ay qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland oo ku howlan inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta ilaaliyaan sharciga iyo dawladnimada ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay
ee geesiyaasha ah sidii ay u sugu lahaayeen nabadda dalka waan u mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada BSF ee runtii gartay waajibkii loo igmaday inay gutaan oo uu madaxda ka yahay Generaal Amiin Xaaji Khayr haddana ku sugan buuraha Galgala oo ah inay ka difaacaan Puntland la dagaalanka argagixisada. ciidamada BSF shaqadoodii bay ku jiraan, waa ciidamo dawladeed oo hawshooda wata. waxaan ka xumahay dhaqanka aan fiicnayn oo dawladnimada u fiicnayn oo dadnimada u fiicnayn oo agaasimihii hore ee BSF uu xilka inuu ku wareejiyo uu ku diiday. arrinta maanta dhacday ayaamihii la soo dhaafana sababtu ahayd. waxaa la wada ogsoon yahay warqadaas beddelka ah inaan qoray 24kii bishii hore, muddada intaa la eg maantana waa bisha 24keedii. dhowr beri ka hor ayaa xabad u horreysay dalka ka dhacda. waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago xaqiiqada dhabta ah iyo xaaladii la soo maray. tikreetadaas markii ay soo baxday, dowladda Puntland sida caadiga ahayd ee ay u soo saari jirtay iyadoo dardar gelinaysa nidaamka dawliga ah, muddadii hadda aan xilka haynin ay ku jirtay inaan dib u habeyn ku sameeyno dhammaan hay'adaha dawladda si dabiiciya si dalku oo hore ugu socdo. runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dawladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dawladdu waxay ka dhar sugaysay inay hawshaas dawladnimada ay fusho. waxay mar walba u taagnayd tala kasta oo suuragal ah oo aanan wax u dhimayn nidaamka iyo dastuurka iyo xeerarka aan dhiganay inay dawladda Puntland ay qaadato. nasiib darro dadaalkaasi ma uusan hirgelin, waxaana aad looga shaqeeyay inuusan hirgelin oo carqaladii ay ka timaado sababo aan hadda ku talinayn inay yihiin sababo sax ah inaan ahayn. arrintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dawladda oo sugaya ammaanka ilaalinaya kala dambeynta in weerar lagu qaaday. weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dawladda dhex maray waxaan maleynaynay inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qaybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiil loo haynin. maxaa yeelay ciidamadii hor fadhiyay oo xabadeynaya ma aha, aagii ma aha, sabab loogu rido magaalada oo nabad ah fasiraad bay u baahan tahay. waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dawladda waxaa ka go'an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qayb galayaa, laakiin waxaan ugu baaqayaa waxgaradka reer Puntland inay u istaagaan dawladnimada iyo midnimada Puntland inay ilaaliyaan. waxaan u rajaynayaa isimada kala duwan, siyaasiyiinta dawladda ah iyo kuwa aan dawladda ahayn, madaxdii hore ee ka hadashay ee Puntland isaga dambeysay, madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, dadaalkooda iyo danqashadooda waan uga mahadcelinaynaa, waana rajaynaynaa kaalinta ay ku leeyihiin inay qaataan. Puntland waa dawlad ka mid ah dawladda federaalka. dadka deegaankan ay dhisteen 23 jirsatay, muddo fara badan soo dhismaysay, naf iyo maal fara badan soo galay, hanti dawladeed oo dadku wada leeyihiin ay soo gashay, iyo mid gaar ah oo shacabku leeyahay. waxaan qiraynaa ciidamada dawladdu ka mid ah xataa shacabku in ay gadeen. dawladdu waa shacabka. sababtay u gadeenna waxaa weeye dalkan in lagu difaaco, dadkiisa lagu difaaco, kala dambeyntiisa lagu difaaco. cadowga maanta ay lahayd Puntland
oo jira waa cadowyo fara badan oo runtii si isku mid ah ay u difaacaysay oo ay har iyo habeen ciidamadaas ugu jiraan ilaalinta nabadda Puntland oo dhul aad u fara ballaaran ah oo badkiisu dhan yahay 212 oo kiiloomitir oo qiyaastii 3 meelood Soomaaliya in yar oo ka maqan gacanta Puntland maana inta kale waxa jooga ciidamo Puntland leeyihiin maamul Puntland leeyahay waxa ka socda adeeg dawladeed waxa ka socda kala dambeyn waxa furan saldhigyadii waxa furan maxkamadihii dadka reer Puntland waxay ku nool yihiin marka Soomaaliya loo fiiriyo barwaaqo sooran iyo xasilooni marna kuma aysan gaareen haddii yihiin dad qoqoban haddii yihiin ciidamo kala tagsan haddii yihiin nidaam dawladeed oo mid ah dawladda Puntland waxay leedahay dakhli hal ah waxay leedahay sharci mid ah waxay leedahay madax mid ah waxay leedahay ciidan mid ah intaas ayay horumar ku gaartay meelihii aan inta lahayn waxa ka jira waan ognahay qalalaasaha ka jira deganaansho xumada ka jirta iyaga waxaan rajaynayaa Ilaahay uu ka qaado dadka deegaanada degan ay gartaan inay danta guud ka wada shaqeeyaan Puntland lagama filaynin maanta inkastoo marxalada qalafsan oo adag oo marar kala duwan ay soo martay laakiin marna waxaan laga filayn in tan oo kale ay dhacdo wixii dhacay waa ay dhaceen qadar bay ku dhaceen hadday taladeenu ahaan lahayd ma dhaceen laakiin xaq Ilaahay bay ka dhaceen waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar damaba shakhsiyan iyo dawlad ahaan iyo dadka reer Puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto dadkeeda inay gumaadaan dadkeeda inay baabi'iyaan horena uma dhicin haddana inoo dhacayso waxaan u malaynayaa intii anigu aan joogay oo aan garanayo dagaal noocan ah oo bulsho iska nabdoon guryo iska hurda ama magaalo Puntland oo hoobiye la dhaco 30 sano markii ugu horeysay wili ma dhicin waan ka maqli jirnay magaalooyinka khaasatan Muqdisho u badan tahay Puntland in hoobiye la dhaco waa maalintii ugu horeysay waa taariikh qormaysa waa arrin adag oo u baahan in dib loo milicsado waan ka xunnahay waa wax aad iyo aad u qalafsan laakiin waa ka tacsiyeynaa wili rajaan leenahay wax walba oo dhaca waxaan u baahanaa inaan isdaba qabanno khalad kasta oo dhaca waxaan u baahanaa inaan daba qabanno waxaan halka ugu baaqayaa agaasimihii hore BSF oo runtii isaga walaalkiis aabihiis waqti badan dalkan difaaciisa ka soo qayb qaatay taariikhda cirib dameedka inuu iska xumayn waan u naseexaynayaa dadka Puntland qof kasta heerku raba ha jooga waxa ka weyn bulshada ka weyn sharciga ka weyn dawladnimada ka weyn ma suuroobi karto inuu qof walba yiraahdo meesha aan ka shaqeeyo haddii la iga bedelo anaa qaadanay ceeb weeye weliba dadkii dawladnimada lagu tirinayay oo ku soo dhintay oo waqtiga dheer ku soo bixiyay fal noocaas inuu ka yimaado runtii ceeb bay ku tahay waxaan rajaynayaa inoo aan rabin inaan hoos u daadego wixii dhacay waa wax nagu wada dhacay waa wax naga wada dhacay khaladka iyo eeda waqtigeeda iyo goobteeda leedahay maanta isma eedeynayno maxaa yeelay waa yeelkeennii carruurteennii hooyooyinkeen ayaa waxay fadhiyaan geedo hoostood waxaan rajaynayaa inuu damiirku danqado waxaan rajaynayaa inay bulshadu danqato waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah ee hadalkoodu saameynta leeyahay ee aan hadallada ee dhiilada ah mararka qaarkood ay ka soo yeerayaan inay ka waantoobaan cidna dan uguma jirto waxaan inay cadaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dawladdu waa dawlad nabadeed nabad bay doonaysaa dhammaan ciidamada dawladda Puntlandna waxaan farayaa inay deegaanada Puntland nabad ay kula noolaadaan ay ka saalaan waxa kaliya ay ka qaban karaan waa cadow meel kale uga yimid arrintan shaqaaqada ee dhexdeeda ka dhacday waxaan qabaa si kale in loo xalliyo waana loo xallin karaa xalkana dawlad ahaan diyaar bay u hayeen wasiirada bil u fadhiya Boosaaso shaqo xaruntooda iyo xafiisyadooda ay garow ahaayeen waxaan rajaynayaa in ganacsigii uu furmo waxbarashadii ay furanto dekadii ay furanto aeroboortka uu shaqeeyo waxaan u ballan qaadayaa ciidamada
hadda gadoodsan ka amar qaadanaya agaasimihii hore waxaan u ballan qaadayaa cid weerarku ah ma jirto cid hadda xal askari ah rabta inay ku xalliso wixii jiray ma aha waxaan rajaynayaa xal nabadeed oo waxgarad aan dawladdu ahayn ay hormuud ka noqon doonaan in lagu dhammeeyo waan dareensannahay qoonsiga jira iyo arrimaha taagan laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda aan u caddayno inaan haddaan nahay dawladdu diyaar u nahay xal nabadeed oo nooc kasta ah oo ay keenaan inaan qaadan doonno maxaa yeelay xalka maanta wuxuu taagan yahay markii dawladda keligeed ay xalinayso way dhaaftay waxaan u baahannahay isimada iyo waxgaradka iyo dadkii Puntland oo wada jira inay waxa jira xaliyaan cidda khaldan qabtaan haddii dawladdu khaldan tahay diyaar baan u nahay inaan qabsoonno haddii qof kale khaldan yahayna in la qabto maxaa yeelay sharciga aan hadda haysanno dadka reer Puntland ayaa dhigtay isimada oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay dib u milicsan khaladaad hore oo dhacay ama aragtiyo hore oo markaas aan u muuqanayn inay xalkii wax ka keenin iyaynan ka daalin waan arkay kuwa oranaya marar badan baan baaqno waxaana laga maqli waayay yaan la daalin waxaan qabaa in arrintaasi ay u tahay maslaxad annagoo dhan xisaabtankeeda waa dambe ayaan xisaabtami doonaa maanta waxaana la gudboon inaan bulshadeenni dib ugu soo celino deegaanadoodii inaan nabadda ka wada shaqayno inaan xasiloonida ka wada shaqayno in qof kasta oo reer Puntland kaalinta uu leeyahay u qaato waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in ilaahay idankiis fariintayda ay gaarto cid walbana ay ku camal fasho xabadaha iyo qoryaha hala dhigo xasilooni ha lagu seexdo ciidamadu si xasilan ha u joogaan cadawga ku dhex dhuumaalaysanaya si wada jira dadku isaga wada qabtaan iyo dawladdu wada shaqaynaya waxaan rajaynayaa arrintaasi waa fariin cad oo runtii dadku ay xisaabin doonaan waxaan farayaa ciidamada dawladda xataa haddii lagu xadgudbo inaan xabad ridin amarkaas ayaan ka siinayaa inta u hoggaansan amarkayga oo dawladda ah weeye inta hadda diidan oo diiday amarkii sharciga ahaa ee dadkan uu lahaa iyagana waxaan rajaynaynaa dadka arki doona waxa ay sameeyaan maxaa yeelay haddaan amarkayga ay qaadan lahaayeen waxa dhacay ma dhaceen marka waxaan rajaynayaa iyaguna inuu caqliga taliyo maskaxdu taliso talada la ogolaado waayeelka la dhagaysto waxa la soo gudbinayo wax lagu dhiso talada dawladdu iyo aragtida ay leedahay waa mid dastuurka ku qoran waa mid sharciga ah hantida dawladda Puntland baa leh sharciga dawladda Puntland baa leh qof kasta oo xil dawladda Puntland u hayo dadka Puntland buu u shaqeynaya markii xilkaas uu ka dhamaado ama iskiis uga tago ama laga qaadana dadka Puntland buu ka mid yahay waxa la rabaa nabadeeda inuu ka shaqeeyo waxa hadda ka qayb qaadanaya wasiirro hore xildhibaano hore madax hore oo wili iyagoon xil rasmi ahayn gudanaya inay nabadgelyada iyo ammaanka iyo horumarka qayb qaataan inay xalka u istaagaan waxaan ku rajo weynahay inta hadda joogta magaalada Boosaaso ee ku howlan iyo inta maalmaha soo socota ku tagi doonta hadii la yiraahdo iyo dhammaan dawladaba iyagoo gacmaha iswada haysta inay arrintaas ka gudbaan ma rajaynayo inay nagu reebto ma hadho ma rabo in dib loo milicsado dadka reer Puntland waxaa ka mid ah halku dhigyadooda xalay dhalay in laga noqdo waxaan soo jeedinayaa xadgudub kasta cid kasta ha geysatay in xalay dhalay laga noqdo waxaan rajaynayaa in hore loo socdo waxaan rajaynayaa nabadii aan ku baraarnay inaan soo celino dabcan taariikhda iyo waayaha iyo xisaabtanku way noo damayn doonaan waxaan dawladdu ay sameyn doontaa baaritaan dhinacyo badan isugu jira khasaarihii dhashay sababihii dhaliyay iyo cidda ku lug lahayd intaba warbixintaas markuu baaritaan ku dhamaado ayaan la wadaagi doonaa bulshada meel kasta ay joogto xaqiiqada maanta inaan ka warramo ma rabo maxaa yeelay waxaan ka baqayaa wax badan oo xaqiiqada haddaan ka warramo in dadka sabadoonka ay xalka ku jira inay caqabad ku noqoto waxaan rabaa dadka samadoonta inay iyaguna xaqiiqada soo ogaadaan wixii ay naga weydiiyaan iyaga u sheegno waqti aan siino ay ku lafaguraan xaajada meesha taalla iyo xalkeeda waxaan qaadanaynaa
xal kasta oo ilaalinaya midnimada iyo dowladnimada iyo kala dambeynta Puntland oo ay runtii gartaan waayeelka iyo waxgaradka iyaga oo wada jir ah waxaan insha Allah u rajaynayaa bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba deganaansho xasilooni nabad horumar iyo in Ilaahay uu ka gudbiyo masaa'ibka faraha badan ee jira waxaad ogtiin dalkeena marxalad adag buu marayaa marxalado wuxuu marayaa deganaansho la'aan marxalado wuxuu marayaa xasilooni la'aan siyaasadeed ka jirto wuxuu marayaa marxalado doorasho wuxuu marayaa marxalado abaareed oo runtii Ilaahay aan uga baryayno inuu ka qaado dadka wuxuu marayaa marxalado kala duwan oo dhaqaale oo adag intaasba waxaan u baahanahay inaan uga gudubno annagoo wada jirna annagoo midaysan annagoo ilaalinayna wixii aan ku caanamaalnay ee kala dambeynta ah iyo Puntland jiritaankeeda cid kasta oo caadifad ka duwan Puntland inay sarreyso Puntland inuu sharci ka taliyo Puntland inay dowladnimada ka taliso waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan inta cadowga qarsoon ah iyo cadowga maqan ah waxaan rajaynayaa dadka Puntland inay isaga filnaadaan inay ilaashadaan nimcada ay haystaan dad badan baa ogolayn dad badan baa aan diidan waxaan halka iyagana baaq u dirayaa dhalinyarada ka shaqeysa media iyo dhalinyarada ka shaqeysa media noocihiisa kala duwan hadduu ahaanayo TV-yada iyo raadiyaasha iyo hadduu yahay baraha bulshada waxaan ugu baaqayaa kana codsanayaa inay nabadda ka shaqeeyaan inaysan faafin propagandada inaysan barakicin dadkooda inaysan ku farxin dad dhintay inaysan u arag guul dad ahla oo iyagu gacantooda dib isugu geystay waxaan ugu baaqayaa in loo jeediyo jihaynta dadka in wanaaga iyo nabadda lagu aadiyo laga yareeyo cawaadifta laga yareeyo waxyaabaha keeni kara xanafta maxaa yeelay arrinta tani waa arrin ka dhalatay magaaladeeni muhiimka u ahayd halbowlaha u ahayd ganacsiga dhuunti Puntland way nin walba way gaaraysaa dhibaatada waxaan ugu baaqayaa bulshada kala duwan kuwa dibadda jiray kuwa dalka joogaba inay mar qura u istaagaan nabadda iyo xasiloonida iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dowladdan ay ku hagaagayso inaan aqbalno waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dadku ku heshiiyo inaan ku dhaqanno maxaa yeelay shuruucda aan ku dhaqmayno waa shuruuc ka soo fushay bulshada dastuurkeeda iyo qawaaniinta ka soo degtay xeerarka iyo baarlamaanada ay leeyihiin waxaan rajaynayaa haddiina lagu helo wax ka duwan waxa dowladnimada ah eedeeda inaan dhabarka u ridano weliba aan qaadanaan diyaar u nahay waxaan ballan qaadayaa sida dabeecaddeeda lagu bartay ay tahay waxaan ilaaliyaa sharciga waxaan ilaaliyaa horumarka waxaad ogtihiin dowladdan muddadii ay joogtay inay ka qayb qaadatay isbedello badan oo maamulka Puntland ku yimid dhinacyadiisa kala duwan dhinaca amniga waxaad ka warqabtaan magaalada Gaalkacyo oo magaalaha ka mid ah magaalooyinka xasiloonida la'aanta markaan nimid oo nabadiid ku badan yahay dowladda Puntland inay ka qabatay waxaad ogtihiin dad fara badan oo ciidamada dowladda ay ku dhinteen lagu laayay saraakiil fara badan ay ku baaba'een dad fara badan oo birmageeda ah lagu dilay maanta waxay ku noolaanaysaa nabad waxay ku noolaanaysaa deganaansho waxa lagu keenay waa dowladnimo waxaan filayaa dowladda waxtarkeeda dadku ma wada yaqaan laakiin dadka reer Gaalkacyood baa garanaya waxaan magaalada Gaalkacyo tagay iyadoo waxgaradkii ciidamadii cid walba joogtay kala shakisan tahay oo nimankii shabaabka dhexdooda ay kala qaybiyeen oo awood u waayay inay nabadooda sugaan waxa aan ku xalinay inaan dowladnimo annaga iyo ismadii iyo waxgaradkii isla garanay in dowladnimadu la xoojiyo ay tahay muftaax nabadda waxay noqotay tijaabo fiican oo miro dhashay maanta waxa ay horumarka ay gaartay waxay ku timid wada jirka bulshada iyo dowladda waxaad ogtihiin magaalada Boosaaso muddadii aan nimid in ay wada jirkii dowladda iyo shacab ka dhashay in xasilooni ay ka jirtay waxaad ogtihiin in horumar ka socday in dekadii ballaarin ku socotay in airportka ballaarin ku socdo in korontadii ay ballaarin ku socotay in ganacsigii uu kor u kacay waxaasoo dhan waxay ku timid dowladnimo haddii dowladnimada aan diidno waxaa dhacaya waxa maanta dhacay magaaladii oo laga qaxay dekadii oo faaruq ah garoonkii aan shaqaynayn cisbitaaladii oo dhaawac iyo dhimasho dhex yaalaan baaba iyo burbur arrintaas runtii waxa weeye dowladnimadii oo la khilaafay ayaa saldhig u ah waxa daawadeeda ahna inaan dowladnimada u soo noqonno
caqligu uu taliyo dadku ay isdaba qabtaan isbeddelka horumareed ee dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca amniga ee jira kuma aanan keenin wax kale waxaan ku keennay waa dowladnimo iyo annagoo u hoggaansan inaan bulshadeena u shaqayno daacad u ah dan kale ka lahayn cid gaara duulaan ku ahayn dad mid sokeeya iyo mid shisheeyaba aanan ugu turayn waxyeelana aan ugu wadnin waxaan ilaalinay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo waxaan ilaalinay in si saxa loo shaqeeyo dabcan dowladda waxaa ka hor imaanaya caqabado waana shay dabiiciya adduunka oo dhanna waa ka yimaadaan dalalka ugu waaweyn oo degan ayaa dhibaatooyin noocan oo kale ka dhaceen iska horimaayaa dhacaya cid sharciga diidan meelo badan bay ka dhacdaa laakiin inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad xag jir ah iyo dad dowladnimada diidan laakiin dadkii dowladda ahaa lagama filayn dadkii ciidanka dowladda ahaa dadkii dowladnimadu tababartay iyo dad shacab ahaa oo runtii qaybo kala duwan ka tirsanaa in man habaabin darteed iyo caadifad darteed inay dadkooda u baabi'iyaan wax dhici jira maaha waxaan rajaynayaa arrintaas bini aadan waa khaldaba ilaahay baa macsuum ah wixii khalad dhacayaan lagu sii adkaysan raganimo maaha inaad ku adkaysatid khaladaad dowladnimona maaha inaan nidhaahno wax walba ciidan baan ku xallinaynaa waxaan aqbalaynaa xalka nabadda ayaa wax walba nagala weyn horumarka ayaa nagala weyn dowladdan waxay ku sifaysnayd tayeynay tiigsi cid walbaa garanaysa wax aan ka shaqaynayn dad colaadeed maan nahayn dad dadka dhiba maana nahayn dowladdan waa la yaqaana dowlado kala duwan baa soo maray dowlad walbana taariikh bay lahayd dowladdan dowlad horumar ka shaqaynaysa horumar siyaasadeed doorashooyinkii qof iyo codobaa socday isbedello dhaqaalaa socday kuwa maamul baa socday kuwa amni baa socday ciidamada isbedelkoodu qayb ka mid a ayay ahayd waxaan ku faraxsanahay ciidamadii dhabtaha ee BSF inay maanta hawshoodu hayaan waan uga mahad celinayaa abaalmarin gaar ah iyo dallacaad aan hadda halka sheegi doonin way heli doonaan waxaad ogtihiin taliyihii guud ee BSF ku-xigeenadiisii saraakiishii hogaaminaysay kulli maanta dowladday ka tirsan yihiin galgalayna dul fadhiyaan iyagoo ka difaacaya ee cadowga inta diiday oo ay la kharaaraatay iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dhegaysano doodooda waxaan rabnaa wixii dhacay inaanan dib ugu noqon waxaan rabnaa bulshada inaan u caddayno inaan nabad doonayno waxaan ugu baaqayaa mar kale ku celcelinayaa dadka reer Puntland oo dhan waa inay u istaagaan nabaddan waxaan uga mahad celinayaa isimada meelaha fogfog ka yimid oo mudug iyo sanaag iyo sool iyo caynba ka wada yimid oo u gurmanaya in magaaladaas ammaan noqoto inta halka aan ku arkay inta boosaaso joogta inta ku soo socota waxgaradka oo dhan waxaan leeyahay hawshiina gud isimada jooga oo u horeeyo boqor burhaan boqor muuse waxaan rajaynayaa inuu nabadda sida dhaqanku ah laguna yaqaanay inuu nabadda u hiiliyo waxaan rajaynayaa isimadii runtii halkaa joogay oo boqor burhaan u weyn yahay inay nabadda ka shaqeeyaan waxaan ka codsanayaa boqor burhaan waa boqorkaygii waa boqorkii Puntland waa boqorkii Soomaaliyeed inuu nabadda u hiiliyo haddii shalay bayaan soo baxay dadka qaybtiisa iyo dowladduba ay u aragtay inay khaldanayd macnaheedu maaha in nabaddii inuu ka shaqaynin waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka shaqeeyo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaan diyaar u nahay inaan si dhow wada shaqayno dabcan bayaankaa hore dowladdu uma aysan arag waddadii saxda ahayd laakiin uma aragna inuu khalad ahaa waxaan u aragnaa aragti markaas la toosnaatay dhici karto inay tan arkayeen laakiin u baahnayd in sharaxaad iyo in laysla fariisto ku habbooneed waxaan rajaynayaa wixii ay arkayeen oo annaga aan noo muuqanayn inaan hadda diyaar u nahay inaan aragno hadday arkayaan waxa aan markaa arkayna wax ka duwan in nalala arko iyaga iyo inta kaleetaba oo xalka la wada qaato waxaan halka uga baaqayaa dhammaan boqorka beeldaajayaasha ugaasyada salaadiinta waxgaradka dowladda culummada cuqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta ururada iyo cid walba oo sama jecel inay samaha ka shaqayso nabadda ka shaqayso horumar ka shaqayso waxaan rajaynayaa dadku inay dib u noqdaan dadku guryahooda ku noqdaan taasaan ku baaqayaa waxaan diyaar u ahay xal kasta oo nabadda Puntland iyo kan Soomaaliya ka shaqeynaya khaladaad ka dhacay ma rabo inaan ku noqnoqdo hadalku inuu ila tago ma rabo message-kayga ugu muhiimsan waxa weeye magaalada Boosaaso laga bilaabo berri
dhammaan hay-adaha dowladdu inay shaqadooda si dabiici u furaan iskuuladii la furo jaamacadihii la furo dhammaan dadku ay kusoo wada noqdaan goobahooda shaqada dadkuna guryahooda kusoo noqdaan dowladduna iyo guddigii loo xirsaaray dadka barakacay sidii ay usoo celin lahayd shaqadooda gutaan waxaan rajaynayaa guul waxaan puntland u rajaynayaa deganaanshiya xasilooni waxaan u rajaynayaa dhacdadan hadda dhacda inay wax ka bartaan oo horumar aan hadda aan la tilmaami karin ay kusii gaaraan waxaa soo maray dhacdooyin badan puntland baraaray ka qaad waxbay ka barteen dib damba ugama noqdaan tanna tiyoo kale weeye waxaan rajaynayaa wanaaggeedaan ka fiirinaynaa dhinaca xumaanta wixii tagay waa tageen xalidhale baan ka noqonaynaa caanadaatay dabadeeda la qabtaa hore baan u soconaynaa dalka horumarkiisa aan ka wada shaqayno annagoo gacmaha iswada haysanna annagoo isku wada caloolfiyow annagoona waxba gocanayn dib wax u eegayn dib wax u milicsanayn intaas ayaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysiga bulshada kala duwan ee i dhegaysanaysay insha allah guul iyo gobonnibaan noo rajaynayaa wassalaamu calaykum